بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan waxaan saaka doonay inaan u sharaxo dadweynaha inaan u sharaxo wareegtada shalay uu wasiirka wasaaradda hawlaha guud uu soo saaray uu akhrinayay marka hore waxaan leeyahay wareegto wasaaradda qorto horta gobol hal gobol khusaysa dalka kama jirto dalku waa isku dhaqan waa isku xeer waa isku shuruuc waa isku dastuur hal madaxweyne leeyahay baarlamaan beenahay waxaan qabaa shuruucda dalkuna sharci dejintuna waa baarlamaanka dalka waxaan qabaa markaa hal meel un bee run ahaantii dalku iskaga mid yahay laakiin wax cid gaara oo sharci gaara lagu awood loogu soo saarayo ama awoodiisa kor loogu qaadayo ama dib loogu dhigayaa inaysan dalka ka socon karin baan aaminsanahay markaan u soo noqdo shaqada wasaaradahan wasaaradda hawlaha guud waa wasaarad ballaaran shaqay leedahay dhulkana shaqay ku leedahay dowladda hoosena waa shaqa waa dowladda hoosena iyana shaqada dhulka qayb bay leedahay waxna waa la sarfeegareeyay wasaaradda hawlaha guud iyada hore u soo firgeysay oo waxna may sarfeegareen waxaan qabaa inta wasaaradda hawlaha guud ee sarfeegay wadooyinka saartay waxaan qabaa dowladda hoose ay maamulayso dee gacanta ku hayso adeegeedii bixinteedii iyo wadooyinkeedii nidaamkeeda dhan iyada dowladda hoose ayaa run ahaantii ku maamula oo maamusha waxaan leeyahay wasiirku wuxuu ka dhawaajiyey inaan dhul la dhisi karin la iibin karin la kala wareejin karin horta laascanood dowlad hoose oo gacanta dhulka ku haysa oo iyada dhul bixisaa ma jirto laakiin waxaa dhulku dadku iyagaa dhulkooda haysta oo shuruuc iyo nidaam iyo mulkiyad ay ku mulkiyeen leh waxa ay noola yimaadaan waa cashuurta fiigan ka qaadanaa cashuurta fiiga boroorkan aan leeyahay cashuurta iga qaad ama fasax seesmuujin meeshaan dhisanay aan leeyahay fasaxii seesmuujinta iga qaad horta waa waxa ugu weyn horta dowladda hoose ay ka shaqayso ah kala wareejintu iyadu badankeeda si wacan ugama hirgelino dadka qaar baa nootaayoyin wax kula kala wareegaba laakiin dadku waxay noogu yimaadaan war cashuurtan iga qaadata dee dhulkii qofka isagaa leh dhul dowladda hoose maanta uu maayar bixiyaa uu leeyahay hebel baan dhul siinayaa horta meesha mawg laascanood ma jirto marka waxaan qabaa inaanan dhacaynin in ay shaqadu ku baaqanayso waayo sababtaa guryaha magaalada dee magaalada intaasoo kuuliba magaalada u shaqayso kuuliya guryaha dhistaa intaasoo wastaad khaldawade iskurmid dhagax guraa intuba waxay u shaqo tagaan waa guryaha intaasoo qofna lora maayo 6 bilood ha camal aadeen guryahoodii waxaan qaataana wasiirku biili maayo heerahoodii carruurtooda biili maayo laakiin waxaan qabaa wasaaraddu waxay xaq u leedahayna xaqeeda u leedahay waa waajib u leedahay oo cid ka hortaagi mayso dowladda hoosena waxay xaq u leedahay waajibaadka ay leedahayna cid ka hortaagi mayso dadweynahana cashuurta waan xaq ugu leedahay dowladda hoose inaan wadooyinka ka ilaalino inay muranka dhexdooda dhulka isku qabsadaan aanu kala saaran inta xaq anaga u leh inta baa anaga fulinayna cidnaga baan sameeyno cidnaga dawgelimayno cidna shaqadooda duulaan kuma nihin wasaaradda hawlaha guud shaqa naga dhaxaysa shaqada naga dhaxaysana diyaar baan inaan kala shaqeyno waxa xaq u leedahay inta markaan ku soo gabagabeeyo hal midoo baa ay raacayso run ahaantii wasiir haddii odayaal ku yimaadeen odayaashu waxay kagala hadleen ay kaga yimaadeen ama buuqa dhulka lagu sheegay waa meelaha ka baxsan magaalada sida beeraha magaalada ka baxsan meelaha la iska xidhmooyinka la xidhay dee meelahaas cabashadoodu kuu timiye ee dhibaato kale dhulka laascanood ka taagan ma jirto waxaan qabaa laascanood 30 sano u dambeeyey laascanood waxaan qabaa meel xabada dhulka kama dhicin diiwaankeedii baa sidii u yaala oo Soomaaliyeed diiwaanka Ingiriiska baa la helayaa kii Soomaaliya meel biliq ka dhacda ma ahayn waxaan qabaa markaa mudane wasiir dee wixii wad ka soo ka dhacday waxaa loo baahnaa meelaha xidhmooyinka ama xoolo daaqeynka ama dhibaatadu ka jirto sida beeraha magaalada deegaanku gaadhay ee dadku isku hoteen meelahaas wax ka qabashadeedu wasaaradda hawlaha guud wax ka qabato
oo cagafyadeedu adeegsato annaguna aanu garab ku siino laakiin ma ahayn inaad tiraahdo boqocadii qof laascaanood dee wax guri la dhisi karo magaalada ma fidi karto bay noqonaysaa laascaanood 6 bilood guri kama dhismi karo horumar ma yeelan karto baan u aragnaa taas markaa nama qabanayso waxaan qabaa arrintaasna inaad dib ugu noqotid shaqadaydana sidaynu soconno gobolkuna waa gobol xasaasi ah inaad runtii aad arrimaha noocaas oo kale aad ku degtid oo media kaga dhawaajisid ma ahayn haddana waxaan ugu baaqayaa shacabka reer laascaanood iyo dadweynaha ugu baaqayaa shaqadu sideedii bay ahaanaysaa maalin raxiim wasada laascaanood Jubbaland ma hayso Somaliland ka tirsan tahay wasiir badan soo shaqeynaya 3 sano maanta sharciga inuu isagoo dhinaca uga leexdo digreeto magaalada kaliya ku koobaya hadda aqoon ma aha ticilka saahayna waxa ma tarin wasiir waxaan ku leenahay dhul dhismahan aad leedahay lama dhisi karo wax lama kale 20,000 oo qoys baa ku biila saaga kantaroolada iska ragooyinkii baad ku ballamisay hada reerahan adigu biili maysid digreetadan aad ku dhawaaqdayna wax alla yaala wixii nabadgeliyo xuma ay keento mas'uuliyadeeda aad qaadaya 10 sano ka hor markii Soomaaliland timi dadkii dhulalka lagu kala saaray baa maanta dhulalkii dib isugu qabsaday oo saysaska iska burburiyay taasina amaan xumada digreetadaadu keentay weeye waxaan baabuurtii qashinka meel walba waa laga soo celiyay waxaan u aragnaa ciidamada qaranka iyo gobolku inay dhulkii qashinka iyagu heshiis ka galeen laascaanood haddii ay tahay Somaliland sharciga Somaliland bay ku shaqeynaysaa xaqna golaha deegaanka ayaa u leh guriga u shisheeyay magaalada 5 kiiloomitir ee laga qaado maamulkooda waxaanu xaq u leenahay cidna u daba fadhiisan mayno waanu dadweynaha u sheeganaa inay dhisan karaan dhulkoodii kala iibsan karaan waxooda shaqadoodina sideedu u soconayso wasiir aduguna dhulka xidhmooyinkii riyaga laga sameeyay xukunto kuwa wax ka qabo digreetadaaduna nabadgeliyo xumo bay isla maantaba bilowdeen mas'uuliyadeeda aad qaadi doona bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta ku qabanay howlka dawladda hoose golihii deegaanka degmada laascaanood shiraan soo nimid oo aan kaga jawaabaynay wareegtadii shalay wasiir ka soo saaray dhulka degmada laascaanood awsaas waxaan jeclay wasiirku waa wasiir qaali aad nagu tahay tolaad noola timid doraato shalay wayna balansaneen waad noo goysay waxaadna soo saartay wareegtada aad soo saartayna mid aanu anagu aad iyo aad uga halkeenay bay noqotay waxaan kuu sheegay wasiir waan la soconaa wiilkan bara saabka ayaa wuxuu ku ururinaya odayaal oo wax ku soo shubtay odayaashina waanu soo aragnay waxay noo sheegeen inaanu ka hadlaynay dhulka xidhmooyinka ah ee seerayaasha laga dhigtay laakiin isagu jeedo kale huuyay wuxuu ka dhigay degmada laascaanood bara saabkana waxaan leeyahay war madaxweynaha gobolka tahay abnigii baa faraha ka baxay xaaladii lagu doortay gobolka u haystay waxaad ku masquusay dawladdii hoose degmada laascaanood waxaad moodaa inaad qabtid cadho xilligaad xoghayaha ka ahayd ayaad bara saab u noqoto saad u laciifin lahayd ayaad ku mashquulsan tahay laakiin waxaad ogaataa adeer gole deegaan bay degmadu leedahay kaana yeeli mayno kaagana dulqaadan mayno shaqadaadana ku ekow taayadana ma soo faragelin kartid wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wasiirkan hal baranaya bara saabkan hal baranaya wasiirka waxaan leeyahay wasiir magaalada waa timid nin wasiir mas'uul baad ahayd dhexdhexaad baad lagu soo diray xaaladda magaalada aad qiimeysay horta wasiir dadkan aad la kulantay ee xaaladda kaaga sheekeeyay ee ku yiri khilaafka nabadgelyo darrada ugu ba'an ee gobolka Sool ka jirta waa dhulka wasiir horta waxay ku habsadayaashii caanka ku ah dawladda hoose waxaan ku sheegayaa wasiir magaalada dhibaatada kaliya ee dhex taala ama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aan gaarsiinaya dhibaato magaalada laascaanood ka dhacdo aan bara saabka hayna ma jirto xaaladii nabadgelyo darrada gobolka faraha ka baxday maanta waxay ku jirtaa noloshii dadka bini'aadanka in la hor istaago oo albaabada loo laabo 50,000 oo qoys oo reer laascaanood aroortii xamaal u shaqo taga mid sibir rarta iyo mid qori iibsada iyo mid ay kuul ka shaqeysay mid guri rinjiyay iyo mid wastaada iyo mid god qodoba iyo mid gaari wato dhagax soo guray iyo dhoobo iyo niisba albaabada loo laabay saaka 3 kantarool oo lagu ballamay waxa la dhagax dhoobo bisaba gaari dhagax dooniya ma bixi karo gaari dhoobo dooniya ma bixi karo albaabada la isugu laabo waxa kale oo jirta dadka magaalada jooga every 24 hours problem dhulba magaalada ka taagan oo aan soo xirxidhnaa dad badan dhulkooda jajabiya dad baanu 4 saac u garnaqnaa waxa dhacday 2013 dhulkii aanu xukunnay ee dadka u kala xukunnay ee la seestay xal in la burburiyay
halkaan ay ka bilaabatay nidaam nabadgelyo darro ah oo digreetida wasiirka ay ka hoosgareysay waxaan kaga baxayaa magaalada xalkeeda haddii la doonayo waa barasaabka laga qabto maanta halkan waxaa ku jiray golihii deegaanka degmada Laascaanood sidaad ka warqabtaanba waxaa warbaahinta ka baxday wareegto ama digreeto uu soo saaray wasiirka hawlaha guud taasoo ku tilmaamayo in dhulka Laascaanood la xanibay taa waxaan kaga jawaabaynaa wasaaradda hawlaha guud iyo annaga waxaa jira wada shaqayn aan leenahay laakiin way kala duwan tahay waxa annagu aan xukunno degmo ahaan iyo wax iyagu xukumaa mana qaadanayno wax shaqadeediga in iyagu ay ku tagrifaan sida awgeed waxaan leenahay hal la kala garto shaqada ay leedahay hawlaha guud iyo ta ay leedahay degmada Laascaanood inta markaan ka gudbo waxaad moodaa in xukuumadani degmada Laascaanood loo tartamayo sidii loo hagardaameen lahaa haday wasiiradeeda tahay haday maamulkeeda kale tahay waxaan sugaynaa anagu in xaaladda nabadgelyo ee taagneyd wax laga qabto in dhul lagu mashquulo iyo degmada dhul khilaaf ka jira anagu ma sugayn waxaan ka sugaynaa wafuudda timid ayo xukuumadaba iyadoo dhammaystiran in xaaladda nabadgelyo ee degmada ka jirta ama gobolkaba wax laga qabto ma yahay mid aan u fadhinay in dhul lagu mashquulo odayaal inta la ururiyo waxaan leenahay arinta iyada ah waa in xukuumaddu ay xaaladda nabadgelyo wax ka qabataa aysan waxba degmada Laascaanood iyo golahan lagu mashquulin annaguna wixii awoodayada cid aan u daba fadhiisanaynaa ma jirto